السلام الله عليكم تعالى ورحمة الله وبركاته أصحاب الملك سوتشوتان وأنا قبضة جلاتنا الله عوا برنامج كمرتبة ولالكي أفكادو ومعلنك وينا وحق السوشيال ميديا ممكن له أبيه عوا كي أفكادو محا كلا قفن دونا أم محن سكور قفتونا ورئيس حسله شيكا قصل بدن واحد كسادس كوبسو واحد بدل ما أنت أم هيسوين أم رياكشن أم هذين نقطة كوموندي أم تشالنجي لكن عاو برنامج كروك دويني أفكار كوسو دوتشي لا channel. بسم الله الرحمن الرحيم عوك وين دو هاي أديك يا أصحابته إن دعوانا يسوون السلامي شلا channel وحنا من ومالتي وهريسي عن صار نحكوا صدا مركا أدي أدنو سلامي يا أصحابته يا أديك يا دمان بعض شلا channel وين دو هاي. أدو ما سنتهي أفكارنا. هذا مدن. مركا أوريسا إيش حوي magaca afakaadho dhaho muxuu ku baxay afakaadhana waxaan naqaanaa bahal Kenya ka baxda oo cabitaanka laga shito oo la cabo yaa u naqaanaa magacan afakaadho la sidoo ku imaaday ma su'aal kale weydiis ma taas weey niyo magacaas sidoo ku baxay waan ka warwareegay inta badan hay waxaan malayn qof uun si hoos aan ugu sheegay mooyaane public wali ma ka sheegay waan gartay waxaan isla shaqeynaa Nuur Maxamed dhowr sanaba hadda YouTube-yada iyo maxaa ku dhahay media warbaahinta TV-yada ma soo dhaxfadhin qof igula soo dhiirado iyo weydiiyo yiraahdo magaca maxaa lagu bixiyay inta badan ma jiro sax run ahaantii dadku siday moodayaan ay ugu bixin sax ana kulli ahaantii waxa yara dhacsan inaad afkaadhada aad u jeceshahay dadka qaar waxay moodaan afkaadhada jecelahay afkaadhada waa yar dhadhan xun tahay dadka qaar waxay moodaan dadku markay ku cusub yihiin way ku mantaqaanay inaan xoogaa isku dhacnay marka labada midna ma waan gartay avocado aniga xogaa aniga bari aan yaraan jiray sax bari aan yaraan jiray oo iskuul yar la qoray bil moogta oo iskuul yar aan dhigan jiray aad no istan meesha magaalada Garis caday aan ku noolaan jiray khaasatan bula taqwa aad yaa deganaa barta inta ka lugayaan gaarsa premier u lugay jiray doorkii bacaadkaad aragtay kaas haddana najaax u lugay jiray haddana dugsigii ilaahay ha barakeeyo sheekhan Sheekh Khaliil إيمان أكتيسا أنا قاعد عداس قوانا حلقاس وحيا هاي وقت فوق وأندوين أو المهي واقع شاي حتى وخنا قادية وحن آذي صوماليا مركان آذي وحن سرعني أصحاب فربضن وأنا سكو تيم نهاي وأنا سكو شقنا وأنا سكو هاولو صعنو أذيات وقادي إنجيل كريسان وقادنا إلى ستة قادي مراحس gawaadhidii aanu qaadanay de asxaab tiimaha wada socotaan waa la kaftami waa la isdacaayadeyn wax kasta la sameeyay inta jidka la sii socdo waa maalmo sax Soomaaliya markii aad u raacdo gaari waa waqti waa dhul aad u dheer aadiyad dhulkan hadda la yiraahdo Jubbaland oo waaga Jubbaland aan ahayn oo iska Soomaaliya una yaan soconay magaalada la yiraahdo Jilib aadiyad adi special Jilib inuu meelahaas ugu baxay magac sax marka كفتن أون أصحابتي فرح بناي يعني إسلا سعني دتك روح والبمجع بالوجود تجني أديات مركا ماشى صف كذا يصير راعي دتكي ما أنت وحكنا المجعسي بحي لين صاحبنا الرشيد عكس لكن رجعتي بنايت ما أنت آخر جيران الله نحرسته شين عكس بنك حسوت ركي نسي اللي رصاف كتيران كحسوتها kala hawaarta la yiraahdo isagana aan reer Gaarsis la ahay ma ka xasuustaa oo jiray isaguna South Africa laakiin shiina Nairobi nagu la sugan adiga saddexda nin baa ka nool ku dhawaad rag aanu dhowr iyo 30 oo meesha ku soconay inta ka xasuusta marka magacan afkaadha saas ku baxay keemo afkaadha maadaama hadda kale afkaad aan ka dhadhaminay aad meelo badan sheegtay oo wadamo martay ma dhihi karna afkaadho waqti yadahayd oo joogay Garis iskuulka u dhiganay dugsiga u dhiganay madrasada najix u dhiganay Gaarsa primary khayr Allah si sheekhani Sheekh Khaliil oo ingaamiro ku yaalay waqti xaaris ma dhigi karna afakaadho ma jirin ama yaana dadkii hore dambe hadda waqti xaaris maanta la joogo ma jirto hal qof oo dugsi iyo iskuul isla dhigan isla aaday way yar tahay dhalinyaradii waxaan sameyn jiray salaad subax markii la tukada dugsiga la aaday sax waxaa laga soo bixi xilliga quraacda saddexdii barka ma waa adi hal saac meelahaas laga soo bixi dhacdhac ahaye iskuulka la aaday sax iskuulkaad ka soo bixi sax 6 saac waan gartay iskuulka dana ku laba noqon haye markaad ku laba noqoto
waxaad ka imaanay iskuulka galabihi صح saada u timaada haddana dugsigii baad aadi عاديات waayna ka ahayn duhurkii qaarka aan ku noqon iskuulka dugsigay aadayaan salaada casar baa dugsiga laga soo bixi waa lagu laba noqon maqribkii laga soo bixi dugsigii aad saaka u dhaqaaqday tuushin baa la aadi صح madrasaleyduna xilliga ay iskuulka ka yimaadaan waxay sii aadayaan madrasada xilliga ka yimaadaan dugsiga madrasada sii aadayaan kabtay iskuulka aadi lahayn bay madrasada aadayaan marka Gaaris waa magaalo aad u kulul waa magaalo waxbarasho taalo waa magaalo dadkeedu ay aad rafaadka ugu carbisan yihiin عاديات ninku bugaag fara badan buu bac ku guran ama baag ku guran uu iska boodi وانقرت hada gaadhi inta badan lama raaco xagii Soomaaliya وانقرت waxaa sameyn jiray marka qorraxda nagu kululaato cimilada Ilaahay halkan keena wax uumi iyo wax saayso wax yaa meelaha maartay dukaamada barafka lagu iibiyo عاديات bacahan yarada caadiga ah sonkorta lagu shubto yaa biyo lagu shubi waa la dhigi markaas ay baraf noqdaan صح intayna marka baraf dhagax noqonay laakiin biyo qabo yihiin yaad gadani صح hal shilin wax saas la siin jiray markaad gadato waa duleelini افكار صاري waad cabi waad isku daadin kolkaad xogaa kululaataba madaxa iskaga soo daadin yar marka socotaad qalali marka waxaa isku mid ah xagga kuleylka intaan arkay magaalooyinkaan arkay goday oo kale قودي قودي قعلو magaalada la yiraahdo Isha Gaarisa قارس عادي Kismaayo lafteeda wax yar bay ka qabowday waa la mid عاديات magaalooyinkaas ay isku cimilaa inta badan صح shilaabo lafteeda waa la cimilo marka dhulkaasi waa dhul dabayl badan oo socota aan lahayn cadceed kululna leh huurna leh wabiyadan sire marka Gaarisaas ay ahayd kartidii dadkaas maanta ma joogto inkastoo meelaha qaar inay kasii jirta laga yaabo inay fogeyn hadda ay dhowr iyo 10 sano ka hor ahayd laakiin kartidii dadkaas ay lahaayeen xogaa dadku way soo dib u soo socdaan rifaas ba ku jira كيمو افكار maadaama tiraahday meelaha kulkul Gaaris iyo godiga cali iyo shilaabi aad sheegtay Kismaayo aad sheegtay aan dhahna yacni qabow kuma dhahay Gaaris goday shilaabo Kismaayo afarta aad sheegtay keebaan dhigi karnaa afkaar ayuu jecel lahaa inuu ku noolaado haddii noloshu imaato ama duruuf imaato haddii horta afartooda dili kala doorasiiyey afarta mid un kala bax afarta mise haddii la yidhahdo adduunka ilaahay dhexda maya adduunka ilaahay waa afarta kulul ee sheegtay afarta kulul mid un degano haddii la yidhahdo shilaabo shilaabo diilay magaalooyinka kale yaa kan barwaaqo badan oo mid walba malayba maro oo labadan kale webiyay leeyihiin midana bad bay leedahay way ka mashaariic badan yihiin laakiin shilaabo xogaa mustaqbalka u runtaay oo ceelasha ku agyaala moogtahay صح marka ninkii ag degan dhari ninka u dhawaa cuna moogtahay marka ceelashaan kula daaran lahaa marka waa ninkii dhahay intii raashin loo hirdhanaya hoy adda dabaxeen ka qaad anna dabaxeenkiisii marka saasa shilaabo dugsanaysaa shilaabo shidal lagu dhawaan lahaa marka reer shilaabo xogaa inaan deris la noqdo aad buu jeceshay afkaada intaad wadamaha socotay ama meelo badan tegaysay wixii kugu yaab badnaa ee aragtay muxuu ahaa oo inaba ilaawi karin niyahow horta maskaxda biniaadamku way aad ba u waxaysan tahay aad iyo aad waxaa jirta waxaad maanta aragto maanta unba kuula yaa badan yahay sax berri waad iloobi waa gartay yaa fara badan ma laha aad iyo aad laakiin maskaxduna waxaa la yidhaha caqligu waa xaasido xilligii su-aasha lagu weydiiyeyna kugu soo dhici marka waa goordho oo kale ay kugu soo dhacdo sax wadamo fara badan yaan anigu maray oo ama East Africa-dana ahaato xaggan Rwanda iyo Sudan iyo Tanzania dhulka xagga inaga ah ama xaggan ha ahaato yani intan ma fogaan laakiin intan inagu xeeran East Africa-da la isku yiraahdo xaggana ay ugu jirto Addis Ababa ugu shayso waa gaadhay laakiin dhulkan ku batayo waxaa laga yaabaa magaalooyinka Soomaalida inta ka soo rogan xaggan maamulka Somaliland intiisan xaggan uga soo rog halkan Gaaris ka rog xaggaas ka soo rog Shiniil ama Dirdhabe inta u dhaxaysa aad iyo aad xamar leh Jubbaland leh Galmudug leh Allahu musta'aan la yiraahdo Somali state oo dhan leh gobol aanan tuulo u marin ama magaalo u marin ma uu jiro especially Somali state ismalihi maanta kolkii laga reebo gobolkan Daawo iyo Liibaan oo iyagana gaari aan ku dhex maray mooyaala aan maray oo filto aan maray oo dalacada aan maray oo iyagana gaari aan ku dhex maray mooyaane inta kale intooda badan lug baan ku dhex maray lugeeyo lug baan ku maray waxa ugu badnaatay Qoraxay Nogob aad erar Faafan meesha kale la yiraahdo sheeg
weliba faafan aad uma gaadhin meesha la yidhahdo shabeelle dhulkaas ugu badnaa marka maalin kasta wax kaa yaabay waad arki dhulkaas oo dhan صح intaad dhulka socoto dad socoto laakiin waxaa laga yaabaa mid kugu soo bodo oo maskaxdaada xanuun ku reebta إنك صبرتو inay yacni kusoo marto kurtigoodna adduunka waa wada yaab صح waxaa jirtaa hadda qoomiyado waxaynu nahay deris fara badan oo qaarkood aynaan isku dhaqan ahayn qaarkood aynaan isku af ahayn qaarkood aynaan maxaan ku dhahay isku diinba ahayn oo aan hadda ama kenyada inaan joogno ama maxaan ku dhahay waddankaynu deganahayba hadda matalan ethoobia la isku dhaho qoomiyado fara badan baa degan qoomiyadahaas marka mid walba dhaqan bay leeyihin marka waxaa kaa yaabinaya dhaqankeena soomaalida iyo dhaqamada qoomiyadahaas kala fogidooda waxaa laga yaabaa hadda tusaale ninka kenyaanka ah waxaa jirta qoomiyad dhaqankeedu yahay inayna cadaynin أديات nadaafad xumo meeshaas ka gaadhay inuuna cadaynin صح weysaad isugu imaanaysaan oo adiga ama faradhaqiyo waad farxalan moog tahay soomaaliduna caala marka waxay haysto candhuufti waa tufi صح oo qaaqpo waa dhihi waxaa laga yaabaa yaqiiqsi oo adiga kaa yaqiiqsanayo candhuufti aad tuftay inuu ninkii mantaaq meeshaana fadhiisto nadaafad darrana waa ninkii aan cadaynayn أديات marka isagu ma cadaydo ma qabaysto meeshu suryadu maanta iska dhaafay shalay suryadu maray yaadan qurmuun fooda gelinayn واكرتي ninkii sidaa ayaan daraa yaa adigii haddaad candhuuf dhulka ku tufto إيه. nin qashinahoo yaqiiqsa kugu tilmaamay أديات waa dhaqmadaan la yaabay marka waxaa la yidhi dayla dabada ku asoolimay ku aroortaa la yidhi ninkani nadaafaddu aniga candhuuftayda kaga baqahaya إيه. ama uu cadaygaygan aan maalintii 5 jeer inaan cadaydo ay sunnaha tahay salaad kasta horteeda waa la cadaydaa صح adigii baa nadaafad heerkaa ka gaadhay waxaa tahay nin qabaysta waxaa tahay nin mar walba cadar isla daba socda yacni ruuxii ku daba maraayay caraf mooya wax kale kaama dareemayo isagana meeshuu galo ee uu ka baxo yacni haddii public toilet musqul caadi ah ama dadku wada isticmaalaan hadduu galo ood uga dambayso waad wareeri ninka qurmuunkiisa أديات haddii aad meesha isugu timaadaan oo candhuuf dhul ku dhuftana waxaa laga yaabaa inuu yaqiiqsi daraaddii la kaco iyo wiswis marka waa dhaqamada aadka u kala fog ee meeshan ka jira waxaa laga yaabaa ethoobiyaanku hilib waxay isticmaalaan aan la karinin inta badan أديات oo qurun oo markii aad usoo dhawaato adiga dhanba wadnuhu ku go'i صح marka hilibka waa la googoyn xoogaa waa la yar huurin dhiigii waxaa laga yar dili isagoo sidiisii ah yaa la soo qaadi basbaas baa meesha la saari waa lagu cuni nin hilib noocaasa cunaya hal habeen baan arkaa malay صح hal habeen baan arkay nin hilib caydhin intuu basbaasa u saaro رشت كوي رشت oo dhiigga labadaa ka daadinaya Sax. inuu quman yahay haddama waa la أديات marka ninkii waxaa samaynayay ee nadaafad darra halka ka gaadhay ee ilfashaqnimo halka ka gaadhay ee wiswiska markaad ag fadhida adigu aad yalaalwooni laftiisu haddii uu adiga ku arko waxa uu laga yaabaa inuu kugu xribaagiyo oo yar waalan oo si kala marka waxa weeye waa isu qabaa loo qabay marka niyo halkaan isla joogno sumcadeena adaabteena nadaafadeena iyo qowmiyadaha nala degan yacni nijaasnimadooda yaa aad u kala fog iyo sida haddana isula qabwan yihiin ee innagaba aynan waxba inoogu arag hadda waxaa jira qolo nairobi joogto kenyana waxay sameeyaan churchill show yacni bandhig أديات soomaalida ku dacaadeynayaan waxaa lagu dacaadeynayaa way qaylqayliyaan waddada caday la istaagaan oo inay qosli baad moodi buu yihi mana qosliyaan oo ilkuhu saa isaga cadaynaya afku xarfinaya marka ninka adiga kugu caayiyo inaad afka xarfinaysi iyo wuxuuna ogay 2017 inay soomaalidu iyadoo qarax ku socdo oo balaayo ku socdo oo baas ku socdo ay qaadeen dadka ugu qosolka badan ama ugu farxadda badan adduunka أديات lambar kore 5 iyo 3 waxaa garanaya lambar kore kasoo galay يكسوكش inuu kow ahaana waan u malay صح marka iyahow kala fogida dhaqamada dadkan aan la degno unbaa uun كولا يا بدن igu yaabada وأقولتي جنانتي برنامجنا هنقلب بخيل سبسكرايب كوانا وعجلات channel يا لايك تشير كومنتي وسعيدين شيء واحد من القرفيل كجرنجيل محمد كل كجرا كشتم عايز جيل قرطة محمد زير لحم محمد كجرا بلبل أفكارو سؤال شكله وحاول مش تلا ما أنت بحنيك أنا أفكارو دوخ أدونك تشير ما أنت أما هوتيلتك أما مروي قالك أنت أكو كرسو أفكارو بحنيك أنا أنت ذي أنت أوتش عليه لكريو أما أنت لو صوص ليه
niyahow horta dadka cuntooyinka badan may aad iyo aad يعني waxba ma necbi waxba ma jecel wixii la soo horreeyay hadda markaan asxaabna meel fadhiisano kulkii yiraahdo maxaad rabtaa ruuxu noo dalbaan dhaha waan gartay meesha maqaayadaha sida tooska ugu xidhnay waiterku wuxuu ii keeno waxaan dhahaa uun quraac ii keen maxaan kasoo dhigaa war quraac uu fiican ii kama ku dhaha isaga dalab ku dhiibtaa isaga dalab ku dhiibaa marka wuu inta badan waxaan cuno wuu yaqaanaa sax inuu wuxuun isaga keena laga yaaba marka anigu waxa aan inteeda badan dooqay u baahay caana geel caana geela caana geela ma sax fidma ku qaba markii taa laga yimaado hilibka la solay maaragtay weliba ka adhiga ah lahayn waxoogaa la yar shiilay fry oo la fry garaya xoogaa waan danaya inay cuntadayda laygu daro sax noocay dooniba ha ahaatee aad iyo aad laakiin cuntooyin kale waa isugu kay wada mid haddii bariis la isiiyo haddii baasta la isiiyo haddii canjaro la isiiyo haddii uu intaan ka naqaanaba haddii la isiiyo xataa ugaalidan haddii la isoo miiso iyadoo hurdo badan waan iskaga avocado maadaama tirahda waxaan jeclaa caanaha geela ma dhihi karna avocado baadiye iyo ku dhashay ama uu kusoo barbaaray oo avocado xoolo welig raac ma la dhihi karaa oo xoolo soo raacday xoolo fara badan ma raacin ma geel baad u badneyd ma lo baad u badneyd ma adhi u badneyd mise dameero geel horta waxaan la socday muddo aan u malaynaya inay 3 bilood meelahaas dhammayd 3 bilood marka maxaa geel jiray nin buuxo yani geel lagu haleeyay mise waxaa daba dhoonka yani dhibti iyo gaawaha lagu riri jiray iyo maqaarka marti baan ku ahaaba rafaadsan oo 3 bilood bakadeed nin walba shay ku qaadi waayo intuu ii dhiibo iyagu macaws bay qabaan gaaban oo nin waan macaws qabo isu diyaariyay ciidanimada ma anoo surwaal xun qabo jimisa oo kaba xunan oo buuda qabo oo igu kululaaday baa ninkii gudun wada kii koor wada soo go'day kii wada sheeg gaawe kii wada wax kasta uu ku dhiib waraaqaad buu ku dhiib waan laga wada tabarooyay waan gartay naxariista raatay jirtana waxaa lagu dhihi waraa geela waxaa laga yaabaa inay ilmuhu meel bay ka joogaan sax xogaa in ilmaha laga celiyaa la rabaa marka wixii dhib badan dhan adaa lagu diray waan gartay waxaa lagu dhihi waraa geela ka reeb ilmaha ka celi yacni yaynan goosanin oo fakanin waad celcelin hal baa marka xogaa way aamusi dib bay kaaga yar noqon geed bay dabamari hoosta ka tusi adoo meelahan dee ruux bini aadam aatay meel iska fiirinayay hashi tagtay ama xaasnimo wuxuu ka qaba hashi inay tagtay buu ogaani kolkuu ololkeedii waayo xaggu ka wareegi uu horordhi uu soo celini markuu soo celiya geelu kusoo dari aduu ku weydiina aw hashi buu leeyahay al hashi waata wuu ku dhawaaqay inta heblow hooy aw hashi waata inta aad waata leedahay raadinaysaa geedka koostus geedka war aawayo waata ma heshid baa isleedahay xageed ka boodiyo kolba ooba ka duldaco war aawayaasho isna wuu og yahay uu ku diyaarsanaya sax waata ayaa meel buu kaaga soo boodi si naxariista ruux saddex candhada ku gelin ha bismillahi rahmaani rahiim marka 3 maalin ku dhawaad oo ul xun markay ugu dhacday silac oo kalena dhamaystay tagala waxaa jira baa dhurda leeyahay sax oo surta mar alla markaad oonto uma soo ka iman haddaad hal iska celiso 10 baa u iman waxaa la marka waa la daayaa burdu marka adigu qoyaan ka haday indhu kaaga day waxba ka qaadani dhagu ka galgali maanta dhan saas uu kugu korwareegi sanki meel baas marka haddaad celiso wuu bataa baa leeyahay aad lama celiyaa marka inta deeso halku isaga cajisi ama dharki iska tagi baa leeyahay waan gartay aniga markii uma dul qaadan karo wixii ugu dul wareegayo waan waabin sax 1 milyan baa soo ka iman anoo cadaabmay yo gabar weeda niyo 3 bilood cadaabay ahayd qiyaasta kulli aad ma xusuusto laakiin 3 bilood xagee seexanaysan banaanka seexan oo hadduu roobkuuda ana ilaahay baad qabtaa hadii oo diin adoo fidha badan baad meesha ka soo toos geel ma dhihi karnaa waxaa yidhi marka geel waxaa laga yaabaa adoo meesha agtiisa aad jiifa oo adiga cirka aan leediin dhaxaynin waxaa laga yaabaa inay libaax uu geeli usoo dhaco maxadadiyo intii geel jirta inay ku dul martaa laga yaabaa adigoo meeshii feedha xunan oo haalinta halkan kaaga istay dhan kale kaaga bixiso waxaa ka daran geelii oo dhan ma baxayo dibadda ma aaday raggii way dhex ordayaan iyo libaax iyo wixii dhan waa la isdhex orday adiga meeshii aad isku yar nabta nirgihii raaba meesha jooga libaaxu waa masti nirguhu usoo dabamari raggan adiga libaaxi baa meesha isugu imaanay marka iyo geelu wax dhib yar ma aha afkaad aan weydiiyo geela markii hadda camal arina waan raacay oo isna waxaan raaci jiray
khamiista iyo jumcaha maya arisa iska dhibire geela hadda aan weli ku dhex jirnaa Ariga markii geela oo habeenkii la seexdo oo xeelada lagu xareeyo inta inaad qadamo geeli jireen inta badan dab buu shitaa marka de ninba meel buu go' yar ama qaydka yar ka wato yuusan dhinac u dhigtaa maadaama 3 bilood u socotay nin magaalo kusoo koran aad ahayd ma dhihi karnaa markii la seexday meeshaas sida ah haddee geeli jira ilaa 3 ama 4 qof ati kabso qad ma dhihi karnaa afkaadha dhexdu geli jiro wuu cabsan jiray mise yacni markuu aad hurdada ku qabto geed baa isku sii dhici jirtay ragga waaweyn baa horta meesha kolkii la dego geela xero loo oodo geela horta xero loo saamiyaa sax xerada geela ma u fiican tahay ma la dhihi maayo ragga ma u fiican tahay lama dhahayo geeli baa loo ooday nirga halkaa lagu xeeyaa nirgiiba haddana meel loo sameyn inta la-eg ku yaraa dhashay aad iyo aad markii meesha loo sameeyo nirgahaas agtooda dabka lagu shiday si iyaga loo ilaaliyo nirgaha agtooda markii dabka lagu shido raggii waaweynaa way baxayaan caws bay doonanayaan sax cawska nin walba meeshii uu isleeyahay dabashii kaa celinaysaa yuu dhigani in yaroo kashkaash ah haa Sax. marka adigu isuma dooraysa nimankaa waaweyn markay meelahooda jagwaystaan fiican ay doortaan ma meesha soo hadhown adigu madgiilun unbaad geli meel adigu haddii aniga dhexda geliyi aniga xagga ma jirto meeshan naxariis ma taallo nimanka haddaad maqasho dugsi tababar oo dhibo ah laga baxa oo xagga nolosha ah oo geljirahaas waxaa jirta tusaale banka qoraxay waa ban hal geeda male weliba hadda geedkii xumaaya geed yahuudiga oo ku batay waxaa ku yaalla geed garasa oo la yidhahdo xamaan gel jire xamaan gel jire yacni xamaan waa alaabta la qaatay moogta aad iyo aad xamaan gel jire marka alaabta la dhigtaa waa la harsadaa sax waala geed keli oo garaska ah halkaa geeda garaskaa weeye ninka marka geeleyda meesha joogta ninka ugu adag oo la isu baxaa waa la isligdaa waa la isla ninba nin buu ka adag yahay yacni adduunka soo hub iskuma faano hub kuma kala adag raggani tun bay ku kala adag yihiin sax ninba nin buu baal iska marin oo nin la murmi kara ma laha waan gartay ninkaasaa macawstiisa gudintiisa iyo gaawihiisa dhigani ruux kale fooda ma gelin karo haye geedku waa ka badan yahay hadda laakiin waa loo iman karin bal adu aabba aad leedahay intaad u timaado ninka haddaad inaad caani iyo wax soo qaado waliyaa caana ma isku day kartaa oo sasabaada oo sabaada laaluushi sida mooyaane ama saaxiibtinimo kale iyo weji kale ka dhexeeya mooyaane intaad iska timaado adoo quduf le geedkii soo gashaad hoos saxato alla xalaad ka tahay nin marka aan saaxiibanaa soo Afrika joogo Maxamuud Daga yara labo raggii geedka laga eriya yaa qurbac u harsan jiray kooda oo is yaqaaneen qurbac marka soo fadhiisto dhanka qoraxdu ka jirta dhanka kale intuu ka hoos galo yuu gorofleedkiisa maxaa shanshadiisa tagoogtiisa halkiisa soo laaban yuu barkan jiray uu saaxan jiray intaas hoos oo ay ninka intuu takala go-iisa soo qaado qurbaca huuyo uu gudunta meesha ku duleeliyo go-aana xagga ka saari qurbaciyo geed kale male wax kale male geel wuxuu daaqi waxaan dhulka laga soo goosto waa ban oo dhul aan caadi ahayn marka dhaga yare laba qurbac is eriyan oo kale unbaa qurbaci soo jiifay isagoo hoos jiifa oo qurbacu halkuu ku jiraa madaxiisu ninka halkaas ku jiraa hawada intii loo tuuray oo lagu sii booday yaa suulasha geelu waa bir wax aad adag wey suulkii uu bartaa ka geliyay intaasaa dilaacday hadda uu dakran yahay halkaas waxaad moodaya inay wax kala weyni ku dhacay sax waana qurbaci waagaas marka dadkan aqoonina waxaa leenahay Maxamuud Daga yar halkaa wax kaga dhacay oo qurbacaas oo qurbacu harsanay ayay u ima ari arigniyaho arig meeqa xubin baad raacisay xubinkiisa yow ariga waxaan raacay anaga horta hal riyaan ku lahay ma ariga dhafa ariga raacay hal riyaan waa gartay marka rida aan ku lahayn yani cadays baa loo keenay magaalada in shaah lagu cadaysto sax waa ari magaalo barka ari magaalo weeye waxaa ka raaci jiray marka khamiista iyo xilliyada dugsiga uu fasaxaya yaa aniga mid yaro walaalkaya aan isku maalkaysan jiray anna khamiistan raacisna jumca marka midkana walba maalin buu raaci jiray waa ama khamiista ama jumcaha aduu labadaa midkood laakiin ad raac oo caadi ma labadaa maalmoodna intaan isla kadeedano oo qaar badan geesaha ka jabiyo dhagax tuur aan walba kaga asqeeyo marka magaalo aad u dhagax tuur badan aad u dhagax badan oo dhagax yar oo inta la eego malmalaasan oo ka buuxana way ahayd meeshu marka kolkii inaad hariso arigu waa wax cagaha ka falan saas uu ordi maanta sax waad soo harin oo meeshaad keeni moogta inuu harsadaad rabtaa in baa iska dareeriyo waad lumaysan tahay waa seexan indhaad isku yar qaban la xun baa dhaqaaqi murfo bartaa fooda intaad ku dhufataad soo celi laga yaaba inay sii dhimato nafta waxayna ka baxda marka adu waxaa rabtaa inay harsadaan dhagax waxaa soo guran marka kiish dhan oo dhagax sax go dhan inta le halka dhigalo oo yar gabi anoo isha isku sii hayaan arkito u dhaqaaqday waad hordhigi
waxa laga yaabaa dhagaxa marka adoo xagga shaka dhigo waxa soo didaan baad leedahay inuu mid barta tawaada intuu kaga dhaco ama geeska dhushku isku siiyo ama uu ama lugtireed aysaa hinjiso marka ariguna waa itaxaan adiyaad arig waxaynu aragnay maaha afakado raacay iyo gabadh arig raacay dad way ka samir badan yihiin sax aad bay uga samir badan yihiin ta kale xataa diiniyan maarata carabis ahaan ninka ariga raaca ee xoola raaca iyo baadiyaha iyo waxa soo maraya waa qof maskax ahaan iyo jir ahaanba ka dhisan dadka intay magaalo un ku dhashan magaalo un ku koraya micmiciga dhan ah waa micmiciga marka ariga haddaan ilma dhala kulle ari ma raacin laha intuu kasoo korayay soo raacda ku noqda afakado waa guntii gunaadkii barnaamijkeena waa gabagabeedii caawa waxaad marti ku tahay barnaamijka ama ku casuumanta Jila Channel aad baan ku salaaminaa aad baan ku mahadcelinaa waqti dheerna waan rabnay inaan kula yeerano waraysi aad ka soo muuqatay anabaha Jila Channel nin waxa tahay noqota xagga saxaafadda nin noqota ama social media-gana magac kule waa tahay asxaabta Jila Channel maxaad ugu soo gabagabeyn lahayd ama maxaad ku salaaminayd aniga horta asxaabta waan salaamayaa waa un asxaabta nadiif aan u malay sax ma yara idin odan baa jirta soo ismaliinu isku leeyahay maanta halkan aan uga muuqanaa maalmo kalena meelo kale aan uga muuqanayna aad iyo aad horta meel kastoo joogaan waan salaaminaa bacda salaan waxaan dhihi lahaa yani aakharo waxba lasoo tara adduunka wax laysugu yeeshan aad iyo aad marka qof walba wuxuu kaaga baahan yahay inaad u qabato unbaa muhiima sax marka annaga waxaan idinka baahannahay kow meeshan macallaan isagama fadhina uma dhadhaalihin idinkaan wax idiin sheegna sax waxaan marka idinka idin sheegana in idinla wadaagana ama noloshanada khaaska ah aad iyo aad ama madadaaladana iyo hibadanada khaaska ah sax ama inaan sacaba idin tunna ah yacni waxaanu isaga madadaalanayna ma danbaan ka leenahay sax dantan ka leenahay gartoo waxaan idin dirayeena aad iyo aad sheergareeya idin dhahno sheergareeya sax haddaan idin dhahno war ha sheergaraynina ha sheergaraynina aad iyo aad haddaan war subscribe saara subscribe saara haddaan kugu la celiyo maalin laba subscribe kaar ku dhaho saar ha saarin tii horaa ka bixiya sax haddaad maalintii hore saaratay maalinta daba ha saarin tii horaa ka bixiya tii hore gudaa marka muuqaalkan faafiya la wadaaga asxaabtiina haddaad ka hesheen inaad ka hesheen waan aaminsanahay kuwa dambeyn soo wadnana daawada aad iyo aad mar walbana muuqaal cusub naga fisha aad baan idin salaamayna aad baan idin salaamnay